waa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan kudka aadmiga laayiyo karoonahaad maqasheen oy la kayrkayranayaan iyo allah keena xanuunka isagaana kaxeeya war aniguna waxaan leeyahay niman yahow cishaba waa cishee caalamkiiyo maanta war iclaamku uu sheegayo caamah baa jira waana shay cajaa'iba nafluhu ku cibro qaataane kuwii cudur dhaqaaliyo isbiday ciidankiiyo xoogga tiknolojiyad casriya inay hayaan caalamka u sheegay caabuqa karoonaha dhashaa caadilkuu diraye alla inuu casiis yahayna waa shay caddayn u ah been maa nugu baahiyeen been maa nugu baahiyeen waada wuxuu cudur maaha miya war maya waa hargab xumaaday yaa hargab xumaaday qaarjeexyo oo fow naqdaa wareer mudug waxay dhaheen hargab kibre weeye koronaha la sheegaya war cudurkan ay sheegaysaan madaxda afrika waa ku faa'iidi shacabkiina waa ku dhibin yahay dad aan isu imaan karin ayagana u imaan karin miyay heleen war muqdisho walba waa kala qoqobnay war lama beed bilaayidiyo iyo inay bukeen hoo bokooye langa soorka badbad sidee waa la eri war cudurkan la sheegayo madaxda afrika lacag badan ka faa'iideena la yiri haddana kow ma joogto lacagtu waa bilow war bangiga adduunka maanta 60 milyan oo dollar ay Kenya ugu deeqeen oo cudurkan loogu talagalay koonfur afrikana waxaa la sheegay inay 70 milyan u qorsheeyeen Soomaaliyana ku socota ninkan warka dhurahayow dambaal aan qorin ha sheegin xaqiiqda dhulkan ha sheegin wixii dhacay ha isku sheegin halkay ka dhaceen ha sheegin siday u dhaceen ha sheegin taariikhda ha sheegin war taliya ha sheegin miya gabayga sameeyay abwaan ardoqonsana kan ha sheegin madawlata sabaasina ka hele walaalayaal Soomaalida aqaanayo hadii lacag la sheego imika xanuunka isku wada ridi doonta haye has jiriisi wir ina bukaanka la siyaa beesada ka aalo hayteen war hadda waxa la leeyahay halka kiiso Soomaaliya laga sheegay inuu jira iyo in kale shakiya laga qabaa war ma aysan hay'adda caafimaadka adduunka WHO Soomaaliya liiski way ku soo dartay lacagtuna waxbay ku leedahay war wasiirka caafimaadka Kenya maalin hore waa yiri gabadhii ugu horeysay ayaan ka helnay cudurkan arrintiina waa beenowday gabadhana Sambor ayaa la yiri haddana waxay tiri wasiirka arrintaas sheegay maxkamadda adduunka ayaan ka dacweynayaa warnimada ordayda Soomaaliya aqlisheedis way sababtoo ah cudurka laanka ka dhigay magaajay mashaagna daadis mashaagna dalku isku kooy mashaagna ilaa dareenka ka jiri warkuduudii Soomaalida waa soo maray maxaa la soo geeyay caalamka loogu baahi waay warnimada qaybta taageen dawladda Soomaaliya cudurkan difaac ka gashay ma dhagaxantii la soo badiyay ciidamo cusub ayaa wadooyinka lagu soo daadiyay war ma jeedintii artaa la xiri karooniko ka shaqeeyay shal wareega bilaawtay wareeg kale maana watiilayda dadku iyo isku iimaan afkana ha soo duubtaan maxaa isku kin keenay war kalamaan karood waa ka horeysay iga fogaadaan bakaashikiye warka haga dhaxgelinine madaxweyne farmaajo wuxuu yiri dawladda Soomaaliyeed waxay u taagan tahay ilaalinta badqabka caafimaadka dalka ra'iisul wasaare Khayran shir degdeg ah ayuu qabtay waxayna xukuumadda ku dhawaaqday in muddo 15 maalmood ah la joojinayo duulimaadyada caalamiga kuwii baxay iyo kuwii imaanayayba war madaxda gafuurku ma u duubnaa markay warka soo saarayeen naga tag gafuur duuban shabaabaan ku nacay war dawladdu duulimaadka caalamiga ah ay joojisay jaadkii Kenya waa imaanaya saysu waafajis war la joojiyana banaan la jeefiyana banaan war hadaan Soomaaliland nahay waxaanu joojinay wadamada jaarkana la duulimaadyada ka yimaada sida Kenya Soomaaliya iyo Djibouti war Soomaaliland Kenya xuduud lama leh niskaas Ethiopia ma lagu daray war Ethiopia charman hine walaalawlay war Ethiopia dabadiisa idin ka maamushaa Soomaa ayar burcay hargeysan ugu kala bixinayna daac isugu bayra war musabbixi oo ka hadlay cudurka coronavirus wixii adduunka laba system baa lagaga dhaqmaa qolo waa qolada shuuciyada dictatorka sida Shiinaha iyo Ruushka oo kale qolana waa qolada dimuqraadiyadda reer galbeedka markii uu dilaacay cudurkan corona qoladii shuuciyadu way ku guuleysteen cudurkan inay xakameeyaan sababtoo ah amarkooda fulaya halka qoladii dimuqraadiyiinta xurriyadu ay u taaglaayeen ilaa iyo hadda war Muuse waxa uu qil u sameysanayaa keligii taliyinimada lagu xami jiray warwarka Muuse waxba ka jira filaya sababtoo ah magaalada uu ka bilowdo cudurkan ee Wuhan ee Shiinaha dukaankii u dambeeyay shal ka baxay isbitaalka dhaqaatiirtiina waa dabaal degeen war ardayda Soomaaliyeed ee joogtay Shiinaha wali ma laga keenay ma sameesha jiraan warnimayaw Facebook waxa ka bilaabay
bilaabatay dadka in la baro sida loo farxasho waxaana bilaabay madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur war sheekh shariif wuxuu yidhi cudurkan waa masiibo ilaahay keenay qof kastana waa inuu ka taxjiraa nimaya weligeedba soomaalidu waa faradhaqan jirtee ma kaambeynkii siyaasaddaa halkaa galay jiroodii li sheegay haddana mu'aarad iyo muhaafadka nagadeena war abiy axmed aa bilaaba fardhaqan horta ma dukada abiy axmed ha faraxashe war madaxweyne farmaajo dadkii qaraxa ku dhammaaday markii uu tacsiinayey waa kii tayga u xirnaaye tookadan isagoo tay lahayn uu soo fadhiistay brotokoolkii tacsiyadana ka muuqatay war madaxtooyada haddii awal dadka galaya qarax laga baari jiray hadda fayraskuyaa laga baarayaa baa layidhi war maanta gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cawid ayay madaxtooyadii baaristu ku bilowday war gudoomiye ku-xigeenku istaaf ma wadan miyaa waxa uu diidi waa in la baaro war wasiir khaliijo weliba ertay libeela ma mee baaritaanna ma ogeli ma ku dartay aryaadhaha idinkoolis wareerin anigu waxaan dhihi lahay kadeedkiiyo kaadidaadan kariim allow naaga kor qaad kadeedkiiyo kaadidaadan kariim allow naaga kor qaad war mahaysiina shirkii puntland maanta la soo xirayaabaa layidhi hayehe yaayow dambi ka gala muga la soo xiraayo xabsigeesa lagu xiri rabaa roodisutaag miyay ku dhawaaqeen war ma jumhuuriyaddii barakaysnayd ayay ku daydeen somaliland miyay ku biireen waa puntland garan maysaaniin waa hooyadii federaalka waana tashatay hooyo adiga mudnaa shale aan maqli jiray ku dayo puntland ku dayo ayaan maqli jiray aniguna wareyskaas nabadii nolola koobiyeysay waxayna dhaheen igu dayo walaal nagu dayo ee waa codku xaraarkaas ilaahayow kuwaan yaa toog naga shibiya maray baa xishoodii maxaa kugu dhacay waree dhacay naga jooga waxaa idinma sheegine shirkii puntland ka socday waa la soo xiraa layidhi war murtiyeedka naga sug maa ka wadaa bunma laga dubtay he wixii ka soo baxa ma la shaaciye mase waa laga qanuudo war wasiiru dowlaha maaliyadda soomaaliya oo shirkaas ka qayb gala wuxuu yidhi puntland gobollada ka maqan waa inay soo dhacsataa marka waxaan la yaabana wasiir dowladda federaalka ka tirsan oo dhacaya puntland gobollaha soo dhacsato yaa laga soo dhacsanaya yaase loo dhicinaya war wasiirkasay sheego haytan kii hata ka hor baarlamaanka dhaxdiisni eraayi maaha afkiina garan mahayo war baa idinka khasaaray neeraayi maaha wiliba gabyaalada puntland lasaadi maaha madeeyo hadda laftigeeda ayuu turjubaan u baahan yahay hadalkaada uusa garanayn war dowladdu waa 4.5 jawaabta ninkaa wasiir maareeyaan ka sugaynaa haa warka eedankasi lafageriyo lusku dhawow maaha waxdiyaa nabadii noolaa isku dirnina war wasiirka arrimaha dibadda cawad wuxuu yidhi madaxweynaha puntland waxaan ka codsanaynaa inuu muqdisho noo raaco roobo meelo lakaliiri lafadoohaye war madaxweynaha micirkaa loo diraya yaa sida abdijaranaa loo xiraa min in la rabo war wasiirka kalluumaysiga wuxuu yidhi madaxweyne deni waxaan ka codsanaynaa inuu mar kale garoowe gogol dhigo oo uu isu keeno dowladda iyo maamul goboleedyada yaa deni gogol tii horaa looga kala tegayo gogol miyo u howla yahay war gudoomiyaha xisbiga himilo qalan xildhibaan saleemaan wuxuu yidhi dadka maanta talada haya doorasho diyaar uma aha war ma haysaana gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan wuxuu dacwad ka gudbiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo taliyaha asluubta gobolkaas wuxuuna ku eedeeyey in maxaabiis ay xabsiga dhexe ka sii daayeen warnimaya war ma haysaane taliyihii ciidanka CID Somaliland ee gobolka Laascaanood waa la dilay asagoo weliba gurigiisa hor fadhiya war taliyaha waxaa la yidhi wuxuu gacanta ku hayay baaritaanka dilkii loo geystay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool war niyo arrinkani waa culo gabal la soo galiyo annakaygii ka bakaluntay baabad maraysa Somaliland yaa intaad wax baarbaaraysayaan adiga bag lagu dhehel ma maqlina miya warnimada waxaa la yidhi 4 nin oo Soomaali oo Talyaaniga ka timid ayay dawladdu karantiishay 7 nin oo Talyaani oo bixi rabtayna dawladda Soomaaliya ka codsadeen inay siiyeyso maadaama dalkooda coronavirus fara baan ku hayo ayaguna meelaan aadna ma naqaanana karantiila miyay dhaheen dad carootay waa lagu yaqaan inay rabaysay adiga xuduud u dhaway ka war maqashay Allah ay wasoo deena waa ka cabsanaynaa wadi guri dhaxdii waa sidii bahal caloosheede qalbigu waxyeeleynaya araga kiisay Allah ay hono muujin waa ka cabanaynaa kullay dooni maysaan bulshoy gabay inta dheer anigoon murtida yaabka badan idinku sii waali oo waliba soo waabiyo dhaxaysa u keena oo daaqa si uu xasilo tanag bacooleystay mid kale jeclaatiin intii laga sameeynayo qabadaas musiiqaadta waa soo afjaraya ariyadaha hore waxaa loo yiri yaa baadeed ma deejiyaan banana uma soo baxa yaa baadeed ma deejiyaan banana uma soo baxa abdulo beek adin hooyti maga darne ogaawe war yaab bana yaa la sugi yaabka ku hor yaala yaa badan adiga ahay kala taga karood alliidin ma tuse